السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يوم ميلاد جوجتان بوائد السلامي waxaan rabaa inaan wax yar kaga hadlo clipkan duco oo ah badeena Soomaaliya laynagu haysto inaan u duceyno hadal wuu soo dhamaaday waqtigii waa soo dhamaaday miiska la isla fadhiyaa hawsheeni maandayda iyo isniintay bilaaban insha Allah taala waxaan rabaa horta marka hore inaan u mahad celiyo laba qodob inaan sheego inaan u mahad celiyo qof kasta oo kiiskan qayb ka qaatay difaaca badeena kuwa hore iyo kuwa dambaba inaan u mahad celino rasuulku wuxuu yiri qofkan dadka u mahad celin rabbina u mahad celin maayo waa marka labaad inaan dadweynaha Soomaaliyeed iraahdo quruur iyo isla weynaan iyo waxa la yiraahdo degdeg iyo tasarruc iyo yeena inagu dhicin insha Allah iyo xamaasad maxaa jira غزوة حنين ورسولك غزواتكي وقالي كميد أها وأصحابته آذوا بدنايين وطبنكم إلا لبيو طبنكم ومركي أبدنايين أي أهايين أي قاركود وحيد هذين لن نغلب اليوم من قلة ولا ما أنت إنا نلقى الرينين يرانا لوغا الرين مايو طيب وانا لقى الرين bal iyagoo inta tirada ahaaba rasuulka waxa ku soo haray baa leeyahay 10 qof ilaa 9 qof baa ku soo haray baa leeyahay kulligoodna waa carreen tayib sidee ku dhacday hadalka rasuulku ma jeclaysna laga rayn maayo adu awoodda gacanta kuma haysatid rabbi baa ku haysta marka kelimada rasuulku aad buu uga xumaaday markii sidaa la yiri laga rayn maayo degdeg badanna waa ku jiray cadawguna aad buu u diyaarsanaa haddaba waxaan rabaa inaan xusuusiyo in la yiraahdo al-kufru milla waahida gaaladu waa walaalo waa hal meel bay ka wada iimaanayaan kulligood way iscaawinayaan iyaga walaala ah adu waxa tahay muslimka daciifka ee waxa tahay miskiinka abaatay dawladiisuna daciifka ay tahay marka cid ku jecel ma jirto haddaba maxaa noo furan ducada ilaahay baa noo furan samada ayaa inoo furan dhankaasaan uga rayn karnaa saacadan wax kale ma dhinna waa meeshii u dambeysay gabagabo أن دعيسن وندعين إلهي سبحانه وتعالى وحان لنا اللهم ربيو اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا الله يوح هذا سهلين أوضا فضين مفضوضاضو إلهي أمورتان نوفضوضه ربيو سبحانه وتعالى نقبت بادي وحلي لهذو عدوه شرطوضا ألو نقبت بادي خلقي آقا أبورت شرطوضا ألو نقبت بادي شماتة الأعداء إن نغفر حان عدو إنه نغفر ألو نجبت بادي قهر الرجال إن رج نجريو ألو نجبت بادي ربي سبحانه وحنكم من جلينا كلمات كاجر لما يسكت ترنبان من جلينا الله يو نجبت بادي الله يو ظلمي أنه مرة من إنا وح ظلمنه الله يو إن الظلمين نجبت بادي إلهي سبحانه وتعالى وحن كفر إحنا هينا مقشيو جوشنا الله سبحانه وتعالى هينا الراعيو ظلمنا بدنا لين وهايستاي الله نجبت باديو شياطين الإنس والجن انت عوانت السوك هالميسة أورلنا إلهي سبحانه وتعالى هكريو والله سبحانه وتعالى نجبت باديو وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.